maanta oo taariikhdu ahayd 11 bisha tobnaad sanada 2015 ayaa waxaa cutubyo ka tirsan ciidanka booliiska Puntland tababar ugu soo xiray kulliyadda ciidanka booliiska qaranka Soomaaliyeed taliyaha ciidanka booliiska qaranka Soomaaliyeed Maxamed Sheekh Xasan Xamuud ay weheliyaan taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska qaranka Soomaaliyeed iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka booliiska qaranka Soomaaliyeed iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska Puntland Cabdirasaaq Maxamuud Yuusuf Afguduud qaar ka mid ah wasiirada golaha Puntland iyo maamulka gobolka Bari iyo kan degmada Carmo ugu horeyn munaasabada tababarka loogu soo xirayay cutubyo ka tirsan ciidamada booliiska Puntland ayaa waxa kulliyadda ciidanka booliiska qaranka Soomaaliyeed ee degmada Carmo ku daafuray gudoomiyaha degmada Carmo injineer Maxamed Cali Shire oo mas'uuliyiinta kala duwan halkaasi ku soo dhaweeyay taliyaha ciidanka booliiska Puntland General Cabdirasaaq Maxamuud Yuusuf Afguduud ayaa u mahad celiyay ciidanka booliiska Puntland sida wanaagsan ay u guteen tababarkii muddada 3 bilood uga soconayay kulliyadda ciidanka booliiska qaranka Soomaaliyeed ee degmada Carmo waxaan filayaa maalintii aynu dugsiga furay waxay ahayd 19 bishii 8aad Soomaaliya maalintaas waa wada hadalay waxaynu ku wada hadalay inaynu ka duwanaan doono muuqaal iyo discipliin iyo waxbarasho iyo moral intaba maalintii aynu dugsiga furay insha Allah maalinta la xirayo saasaynu ku ballan Soomaaliya waxa sharaf weyn ah maanta oo dugsiga Carmo la xirayo inaan ku soo dhaweeyo xiritaanka dugsiga Carmo taliyaha ciidanka booliiska dawladda federaalka sareeya gaas Maxamed Xasan Xamuud maalmahan baan nagula joogay booqasho gaaban soo gaaray dalkiisa Puntland ciidankiisa booliiska iyo shacabka reer Puntland inuu u yimaado khaasatan ay ahayd kormeerkiisu inuu arko ciidanka booliiska Puntland marxaladkiisa nala xiro tababarkii dugsiga Carmo oo maanta dhamaaday aad baan ugu faraxsanahay taliyaha waxaa la socda wafdi ballaaran oo ka mid yahay taliye xigeenka ciidanka booliiska federaalka Bashiir saraakiil kale General Garaad oo kulliyadan hore taliye uga ahaa gabdhaha booliiska ah waa aragtaan iyo wafdi ballaaran oo saraakiil iyo cid walba leh taliye waxaan maanta ugu soo dhaweynaynaa kulliyadda Carmo oo aan filayaa adiga ruuxaaga inay maanta kuugu horeyso aniga ka taliye ahaan intaan taliyaha ciidanka ahaa difcaddii ugu horeysay oo dugsigan aan tababar uga furo ayaan maanta kugu casunnay inaad koorsada noo xirtid waan dareemaynaa waadna nala aragtay baahida ballaaran ee ka jirta kulliyadda Carmo oo ah kulliyad Soomaaliyeed oo Soomaaliya wada leedahay horeyna Soomaali oo dhammi ay ugu tababaratay haddana macallimiinta jooga ay yihiin macallimiin ka tirsan federaalka taliyaha ciidanka booliiska qaranka Soomaaliyeed Xamuud ayaa dhiirigeliyay ciidamadii maanta tababarka loo soo xiray waxaana uu ugu dambeyntii taliyuhu hadalkiisa ku soo gunaanaday heesta qiimaha badan ee Soomaaliyeed toosa taasi oo dareen ku abuuray guud ahaan dadkii ka soo qayb galay munaasabadani tababarro kala duwan inta awoodeena ah inaan idinka gacan siino haday ahaan leed baanbayda haday ahaan leed miina baarista haday ahaan leed taraafika haday ahaan leed takhasusaadka kale ee leeli saraakiisha inta bataliyaha waa ka wada hadalnay wixii aan qabsan karno anaka qabsanayna wixii kale waa raadinayna
taliyaha dugsiga Carmo wuxuu amaanay ciidankiina halkan fadhiya dhinaca discipliinka dhinaca nadaafadda ana mid baa iga dhiman wadakir fa inna dhikra tanfa'u almu'miniin waaye waxa la idin karaba xiriirkiina ilaahay inuu xiriir toos ahaado oo salaada la tukado ciidan booliisa tihiin daryeel ma jiro mushaar ma jiro waxaad ogaataa shaqadan inay tahay cibaado qofkan aaminsaneen in shaqada booliiska ay cibaado tahay qofkan aaminsaneen ha iskaga tagay goorta marka aniga warkayga intaasaan ku soo kooba Soomaaliyeed tooso ugu dambeyntiina abwaanad sareeda Ibrahim Roble ayaa tixo Brambura ka tirisay halkaasi oo ay ku dhiirigelinayso ciidamada booliiska Puntland salaan gacaltooyo oo wax ku gaadayay gudoomohooya buulaan idin baryay madaxda wada socoto federaalka sare ka timi siyaasadda waxay dhisayeen ilaa siyaad magaca Soomaaliyeed bay xilka u sidaan allaha sare yeele safar dheerin oo ka yimi oo soo dhowayntiina sumucyaan idin akhriyay idinka oo saxar la wadankii salaamataga salaan gaarsiiya soonaha Puntlandka Cabdirasaaq dawladow dubigii Puntland daruur noo curatay iyo dogsi noo dadow daqiiqad intaanu hayn ciidankii isku dumay diriiskii u keenay lacagtii diyaar ka dhigay derajo gaarsiiyay iyo haykal dawladnimo ilaahay cadowga dawraya kaadfa baratay iyo taliyahooda sare takhaquskaad qaadateen iyo tacliimihii war waa inaad taabagelisaan ku talagashaan cadowga ka tiirshato maalitiin iyo ciriir maxamed barre Saciid maxamed dadaal raadiyaha iyo telefishinka dowladda Puntland degmada Carmo ee gobolka Bari.